ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijka aan uga hadli doono taariikh nololeedkii madaxweynihii labaad ee Somaliland Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal Allah u naxariiste. Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal wuxuu ku dhashay sanadkii 1929 degmada Oodweyne ee gobolka Togdheer. Yaraantiisu waxaa ku soo barbaray magaalooyinka Burco, Berbera iyo Sheekh oo ku dhamaystirtay waxbarashadiisii malcamada Qur'aanka Kariimka ilaa iyo dugsigii Sheekh. Waxbarashada sare ayuu u tagay oo la xiriidha xagga ganacsiga magaalada London ee waddankaasi Britain. waxaana uu dalka dib ugu soo laabtay horaantii sanadihii kontameeyadii oo ay aloosneed xilligaasi dabayshii xornimadoonka ee xisbigii la odhan jiray SNL oo halgamayay xornimadii goboladii waqooyi. sanadkii 1956 Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal Allah u naxariiste waxaa loo doortay inuu noqdo hogaamiyihii guud ama xogayihii guud ee xisbiga SNL bishii Febraayo sanadkii 1960 Allah u naxariiste. Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxa uu gacantiisa ku soo saxiixay in Somaliland ay xornimadeeda ka qaato dowladda Ingiriiska taariikhdu markay ahayd 26 Juun 1960. markaasi waxaa Cigaal ku wehelinayay heshiiskaasi rag ay ka mid ahaayeen Cali Garaad Jaamac, Xaaji Ibraahin Nuur, Axmed Kayse Ducaale iyo Maxamuud Cabdi Caraale. Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal Allah u naxariiste wuxuu noqday hogaamiyihii ugu horeeyay ee Somaliland kadib markii xornimada ay gaartay 1960. 1 July 1960 gobolada koonfureed ee Soomaaliya ayaa xornimada ka qaatay gumaystihii Talyaaniga waxaana dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo hogaaminayay wafdigii ka socday Somaliland wuxuu noqday wasiirkii gaashaandhigga ee ugu horeeyay ee Soomaaliya. Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal wuxuu kaloo noqday wasiirka tacliinta ee Soomaaliya sanadkii 1963 ilaa 64. hase yeeshee kuma raagin jagadaasi waanu iska casilay waxaanu ku biiray xisbi mucaarada oo la odhan jiray SNC. mar dambana wuu ka tagay xisbigaasi wuxuu ku biiray xisbigii la odhan jiray SYL. 10 July 1960 wuxuu noqday Cigaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii Cabdirashiid Cali Sharmaarke loo doortay xilligaasi madaxweynihii Soomaaliya. Cigaal mar kale ayaa loo doortay jagadaasi ra'iisul wasaaraha doorashooyinkii 1969. 1 October 1969 inqilaabkii military oo hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre oo ka dhacay Soomaaliya. Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii Soomaaliya ugu dambeeyay ee ay yeelato dowlad Soomaaliyeed oo la doorto waana la xiray. Cigaal xabsiga ayuu ku jiray ilaa 1981 bishii Febraayo marka laga reebo muddo sanad ka yar oo ahayd 1975 ilaa 1976 oo mar loo magacaabay danjiraha Soomaaliya u fadhiya New Delhi ee dalka Hindiya. isla markiiba xabsiga ayaa loo celiyay. 1985 waxaa jirtay mar loo magacaabay Cigaal gudoomiyaha rugta ganacsiga laakiin jagadaasi waa iska casilay. burburkii dowladda Soomaaliya kadib Cigaal wuxuu ka qayb galay sanadkii 1991 shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliya ee Djibouti. 1993 May 5 Cigaal waxaa loo doortay madaxweynaha Somaliland iyadoo jagadaasi dib haddana loogu doortay sanadkii 1997.